بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنيقو نبضون آذن عبد أمين كان من نبضون ندا بيشا قال جعل كنا أبترسدا كونفور قلبات وحان مركا كوبات سلام أدرى يا ضمان مسلمين تودن ميلك أي جوغان مدى حكتا وحان ربا إن maanta ay kilibkaygan aan ku taageero hadalkii kasoo yeeray iyo talooyinkii wanaagsanaa iyo warbixintii dheereyd oo uu bixiyey xildhibaan aadan cabdi faarax isu keene degmada Mawlaweyn ka jeediyey kuna hadlay hadallo walaaltinimo bulsho soo jeedid deegaan kuwada noolaasha tusaaleynayay dadka qaldan waxa ay sameynayaan tusaale siinayay dadka dhibaataysan ayagana lagu xadgudbayay arrinkaas codkaas waan taageerayaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kilibkan aan ugu talagalay inaan ku taageero codkiisaas waxaan cambaareynaya oo cambaareyn kaliya maahane aan jawaab ka siinaya ninka hadallada aan loo dul qaadan karin halkaas ka sheegay isna ceebka walaalaha deegaanada kala fogeynaya dadka wada degan kala ceerinaya carabkiisa doonaya in bulshadaas nabadda ku wada nool ee walaalaha ee wada degan ee abtiga iyo aysanka doonayo in ay macnaha faraha dhiig ay la galaan waxa uu sheegayaa hortaadana lama sameyn haddana ma sameyn kartid cidka yeelaysana malan adduunyada waxay noqotay hal tuulo meel walba waa la wada joogaa waan lagu arkaa waxa sameynayso howlaha aad qabatana waa la yaqaanaa dadka aad macnaha buufinayso iyo waxaad sheeganayso alleeda koonfur galbeed ayaa aniga aan ugu ahay macnaha mas'uul halkan u jooga alleedahay war adeerow waxaad sheegayso waa wax qaldan wax ku soconayna ma ahan horena kuuguma aadan soconin haddana ma socon doono adiga iyo inta kugu fikirka waxaan ku sheegayaa in aad fikirkaas ka waantoodaan haddii aad ka waantoobi weysaan kuwii hore meelahay mareen aad maraysaa nin kasto oo doonayo inuu ummad burburkeeda iyo dhibaatadeeda ka shaqeeyo waxaa u dambeynaysa burbur oo u dambeynaya marka waxaan ku leeyahay adiga iyo inta kugu fikirka ninkaagaan sheeganayo guddoomiyaha degmada Mawlaweyn sheeganayo adiga iyo inta kugu fikirka waxaan ku dhihi lahaa fikirkaas bedela haddii aad bedel weysaan intii hore meelahay mareen aad mari doontaan deegaanadaas markaan usoo laabto koonfur galbeed ma ahan xaafad yar ma ahan guri uu degan yahay nin qaas ma ahan tuulo oo afar reer ama wiil iyo aabihiis iyo adeerkiis ay ku nool yihiin koonfur galbeed waa dhul baaxad weyn leh dadku waxaa loo baahan yahay inay kala fahmaan deegaanada iyo dadka sida ay yihiin iyo sida ay u degan yihiin war adeero koonfur galbeed markaa tiraadid waddanka wuxuu qaatay federaalka sidiisana waa dad wax isku darsaday dadka haddii wax isku darsadaan oo dad wax isku darsada haddii ay yihiin hadda waxa isku darsadaan waxay u baahan tahay in qof walba uu leeyahay la garto qof walbaba xisaabtankiisana la siiyo haddii aad leedahay waa federaal aadna sameynayso waxa aniga aan ogolahay maayn wax kale oo dhan waa qalad inta aan aniga macnaha aan nafteyda iyo saaxiibaday iyo jufadayda haddii aad leedahay adeerow koonfur galbeed beesha gaal jecel inta ay ka degan tahay cid loo sheegaya malaha sheegidna waa ay ka dhan tahay deegaanada ay ku nool yihiin oo ilaahay uu makaniyey ay degan yihiin halka uu ka bilowdo iyo halka uu ka dhamaado waa caan waa la garanaya laakiin in aad ereygaas ku dhawaaqdaan oo aad tiraadaan gaal jecel intuu degan yahay
su-aashaas waa su-aal u baahan isweydiin badan. halkey ka timid, sababta maxay tahay in la isweydiiyo. adigana isma weydiinaysida, cidda la yiri ayaa isweydiinaysa. kolkay isweydiiyaana insha allah waxaa kasoo baxaya, qaarkood hadda wayba isweydiiyeen, waxaa kasoo baxaya jawaab ay ku qancaan kuwa isweydiinayo iyo kuwa dhahay jawaab ay ku qancaan kasoo baxayso biidhnillaahi baari. waxaan leenahay koonfur galbeed, adeeryaalo koonfur galbeed waa sida aad ogsoontihiin waa baay, bakool iyo shabeellaha hoose. haddii ay sidaas tahay oo deegaanka la wada degan yahay, haddii aad aqoonsato waa sida la rabay. qaladaadka aad sameynaysaan oo maalin walba aad sameynaysaan, hore usoo sameyseen iyo hadda waxaad sameynaysaan, dee waxa waaye waa waxaad ku socotaan. qaladaadkiina ma ahan mid aad walaalow aad ku daynaysaane, waa mid aad ku day doontaan insha allah biidhnillaahi kariim. sidii horeyba u dhacday aad ku day doontaan. haddii koonfur galbeed hadda mas-uul buu leeyahay, nin baa ku magacaaban, wax kasta oo dhaca waa lafta gareen. kow, odayaasha dhaqanka nin baa afhayeen u yaala leh. war ninkaad afhayeenka ka dhigateen koonfur galbeed iyo odayga dhaqanka aad macnaha nabadoonka ah ee macnaha odayaasha dhaqanka mas-uul ka yaala leeyahay, war adeero ma wuxuu leeyahay macnaha ma dadkuusan kala garanayn, ma dhulkuusan kala garanayn, ma dhulku meeshuu ku dhashay keliyuu ka yaqaanaa, dadkan inta ku nool keliyuu ka yaqaanaa. haddii ay macnaha haa tahay, adeero ummad waxba uma qeybin kartid, dadna waxba ma siin kartid, dadna ma soo dhaweyn kartid, dhibaateena kugu tahay. haddii ay maya ay tahay oo dhulku wuu garanaya, dadkan wuu garanaya hadday tahay, micnaheedu wuxuu yahay ciddaan doonaan ka tagayaa, ciddii idhirbaxdana wax baan siinayaa, ciddaan idhirbaxina waxba sii maayo. annaga siisma kaama rabne, wax aan wada qaybsana, nin walbana qaybtiisa qaato. cidda siismada kaaga baahan sii, annaga laakiinse wax aan qaybsanaa joognaa. wax aan qaybsana haddii aad diidana, dee nin walba wixiisa ha anfacan. adigana waxaad ku anfaceen, annagana waxayna na anfacayo. nin walbana wixiisaa difaacdo. annaga waxayna waa difaacanaynaa insha allah, waxaynaan haysanaynaa. ciddii u baahan inaan wax ku darsanan yaan ku darsan doonaa, waana ka tashanaynaa. dhinac walbana waa kaga tashanaynaa. hadduu alla idmo sidaana kuma hakanayso. waxaa kaloo raacinaya, koonfur galbeed waa stateskana iskama taagno, maalgelin baa la siiyaa. federaalka ayaa macnaha hoos timaada. federaalka waxaan u sheegaynaa oo uu madaxweynaha kow ka yahay farmaajo, ra-iisul wasaaraha, intaba waxaan la socodsiinaynaa. haddii ay la socdeen waa ay la socdeen, haddii aysan la socon waxaan la socodsiinaynaa in deegaankaas koonfur galbeed beesha ugu ballaaran ee dhulkaas degta in la yiri waxba kuma lahan. hadalladaasna waxay ku jiraan ayagoo toos oo muuqaalna waan aragnay, ayagoo maqalna waan maqalnay, ayagoo mubaasharo ahna waan isla hor fadhiisanay. waxaan u sheegaynaa marka, wax alla yaalo wixii ka yimaado, inta ku kaalmaysa oo dhaqaalaha ku bixisa, deegaankaas ku bixisa, ee dowladdaas macnaha fanka siisa, nooc kasta ay yihiin. haddii ahaan lahaayeen eedaha caalamiga, haddii ahaan lahaayeen, haddii ahaan lahaayeen kuwa local, haddii ahaan lahaayeen, haddii nidaamka federaalka, dowladda federaalka ahaan lahayd, waxaan baaq u jeedinaynaa intaasoo idin in ay waxa ay ugu talagaleen ee shacabkaas soomaalida ah ee ku wada nool deegaankaas koonfur galbeed xuquuqdooda ah, in ay u wareegto deegaano qaas ah, looguna qidmeeyo, laguna soo xareeyo, laguna magacaabo, howlahaasna loogu qabto. sidaas daraaddeed bulshadii intii kalena in ay macnaha ay ku dhibaataysan tahay, ku aradan tahay, haddana ay diyaar u yihiin
inay go-aan ka qaataan. Soomaalida waxay tiraahdaa nin geed tiriyey ee yaa ka tagay geed ma xisaabin. hadda koonfur galbeed oo la tiriyey gaaljacalna ma dego qof oo macnaha maskaxdiis galaysa ma laha, qof caaqil ah ama Soomaali ah oo Soomaali ku nool oo warkaas kaa maqli kara ma laha. nin yahow dulmi haddii aad diidi jirtay hadda dulmi doone ayaad noqotay. annagu dulmi ma doonayno, inta Soomaalida diris wanaag inaan kula noolaana ayaan jecelnahay. walaaladeena ay deegaanada degan oo aan ku dhex soconno, nagu dhex socdaan, nagula noolaadaan, waana soo dhaweyneynaa cid kasta oo doonaysa in wanaag iyo wadatashi aan ku wada noolaano. ciddii aan doonaynina waxaan leenahay intiina hadin deeqdo annagana inteena na deeqayso, intiina difaacdo annagana inteena difaacnayna sidaa doona kala yeelna. wasalaamu calaykum waraxmatullahi